koonfur galbeed mudane cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen aad baan ugu mahad celinaynaa khudbadiisa qiimaha leh iyo dabcan sida uu tusaaleeyay dadka Soomaaliyeed inay isku daydaan oo dekada kuwan oo kala isku tag ku dhistaan aad baan uga mahad celinaynaa munaasabadan ballaaran waynoo gabagabo waxaan u mahad celinaynaa cid kasta oo halkan shaqada qayb ka qaadatay hore waxaan u xusnay dhalinyaradii habeen iyo maalinba dhisayay dekedan waxaan u mahad celinaynaa shirkadda wadaagsin dhismaha garoonka waqtiga iyo nafurnimada gelisay oo qaybaheeda kala duwan ee farsamo oo xitaa warbaahinteeda wadatay sida u shaqeynayeen waxaan u mahad celinaynaa warbaahinta Puntland kala duwan iyo kuwa ka yimi gobolada kala duwan ee Soomaaliya iyo kuwa inagala jooga TV-yada iyo jaraa'idada caalamiga sida Al Jazeera iyo Al Arabiya iyo dhammaan inta halkan joogta aad baan iyagana ugu mahad celinaynaa telefishinka dawladda Puntland TV oo isna qaybinaya muuqaalka tooska maanta loo daawanayo oo warbaahintooda si furan u qaadanayaan aad baan uga mahad celinaynaa waxaan u mahad celinaynaa ciidamada amniga sida wanaagsan ee amniga u sugayaan habeen iyo maalin iyo dhammaan cid kasta oo halkan ka shaqeysay iyo shirkadda maamushay meeshan quruxda badan ee qaabkaas quruxda badan u dhacday qaybta دوخ برس أو حتى إلى كاربك إلى ورقها واحد بينهم سميسي أدى يدن وجمع العلينا وكم هتنتهين دولة بنتلان الصومالية وهو جامعة مدحوين سعيد عبد الله الدني أفر إلى عشان قضب ووابا وعواهين بدك قضبك باسمها كابياش رقالها وعوها قضب وين وحتى حلقي أولا لها لبكن سديدي طبعا ومدحوينه كلهم كيسي وقودهم بي وردي مدحتيني ماذا وكشيغي وحيالي وحسين حكم إذا قرعت وبلان قاضي هدي لدورتو إن قرعت وكذا بينيو oo dhisayo waana uga mahad celinayna qaybaha kalena waa ciidamada iyo maaliyadda iyo dadka inay codeeyaan oo mas'uuliyintooda ay doortaan aad baan u mahad celinayna waxaan u mahad celinaynaa madaxda kale ee Puntland ee halka jooga dabcan dhammaan madaxweynaha ayaa inoo hadlaya gudoomiyaha baarlamaanka u mahad celinaynaa mudane Cabdirashiid Yuusuf Jibriil Cawl iyo wasiirada iyo mas'uuliyiintii iyo guddiga heer wasiir ee halkan joogtay iyana shaqada qaybta weyn ka ahaa ee la shaqeeyay qabanqaabadan iyo hawsha inoo diyaariyay waxaad ila soo dhaweysaan madaxweynaha dawladda Puntland مدن سعيد عبد الله الدني ومدحوينها إنه دقح دقة إنه كرميري إنه فدودي أديجيا يقلب يوحكستا ين عشر ضعف لوصمة يلا رشقي أمني عيد كستا مدحوين السودو بسم الله الرحمن الرحيم مدحوينها دولة فدرال كالصومالية مدن حسن شيخ محمود مدحوينها كونفور قلبيد مدن عبد العزيز مدحوينها دولة دقان كالصومالي دا مدن مصطفى وزير كقاشان لقا يوفدقا وهقامين ايو دالك كينيا وزير دا هير فدرال ايثوبيا قدوميها بارلمان كبنتلان وزير دا يحلبان دا دولة فدرال كالصوماليا وزيرada iyo xildhibaanada Puntland wasiirada iyo xildhibaanada koonfur galbeed ganacsatada marti sharafta kale cid kasta oo halka fadhida oo aan xusin oo ilaaway dhammaan ka soo qaybgalayaasha ee ugu horeeyaan isimada culimada iyo cid walba maanta halka joogta dhamaantiinba assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh maanta hadal badan halka igama furna waxa ay furan oo kaliya inaan u mahad celiyo dhammaan inta ka soo qayb gashay xafladan lagu furayay wajigii koowaad ee dekada Garacad waxaan kaloo rabaa halka inaan uga mahad celiyo cid kasta oo gacan ka geysatay af iyo adinba oo ugu horeeyo madaxweynihii iga horeeyay Cabdiwali Cali Gaas ganacsatadii ismadii wasiiradii fikirkaas saldhiga u ahaa runtii waxay u tahay Puntland sharaf isku day weyn bay ahayd waxa saldhig u ahaa inay dekedan maanta hirgasho go'aankii dawladda Puntland ay qaadatay iyo hantidii ugu horeysay oo dawladda Puntland ay gelisay in lagu bilaabo ganacsatadii ku dhiiratay iyo guddigii hawshaas fikradeeda riixayay oo runtii maanta sharafta u weyn ee iyagu leeyihiin ee wadaagsin
dekedaan iyo ahmiyaddeeda intii igu horraysaa sheegtay. waxaan rajaynayaa hadafka laga lahaa oo ugu muhiimsan oo ah inay ka qayb qaadato deganaanshaha iyo amniga geeska. mashaakilka u weyn ee dadkeenna haysta oo laga soo galo waa dhaqaale xumida iyo saboolnimada. dekeddan waxay abuuri doontaa kobcin doontaa dhaqaalaha, waxay kor u qaadi doontaa isdhexgalka iyo xiriirka ganacsiga, waxay abuuri doontaa in dadka wax la isugu daro oo ay waxda wadaagaan si ay u noolaadaan. waxaan uga mahad celinayaa madaxda geeska Afrika ee ka soo qayb galay oo runtii waqtigooda soo bixiyey. waxay noo muujiyeen inay diyaar u yihiin inay Soomaaliya wax la qabsadaan oo wax la qabtaan. sharaf weyn bay noo tahay haddaan nahay Soomaali inaan dalkan u jihayno inuu noqdo dal xasiloon oo ka qayb qaata deganaanshaha iyo horumarka geeska Afrika iyo isdhexgalkiisa. waxaan u nahay ubuuc. waxaan rabaa inaan si gaar uga mahad celiyo madaxda dowladda federaalka ee Ethiopia iyo madaxda dowlad degaanka Soomaaliya ee Ethiopia oo runtii muddadii ay socotay iyo ka horba xiriir iyo ganacsi hore aan lahayn ka sokow naga ogolaaday inay dekeddan ay noqoto meel ama corridor kaleeto cusub oo ku soo biiraya Ethiopia. waxaa dhammaaday tuurdibi kastamkeeda oo labada u dhaxayn doona insha Allah dal. waxaan rajaynaynaa inuu ganacsiga iyo horumarka uu qayb ka qaato. hadal badan maanta halka igama furnaa. waxaan rabaa inaan ku soo dhaweeyo oo hadalka xooggiisa leh madaxweynaha federaalka Soomaaliya oo aan si gaar uga mahad celinayo inuu maanta kulankan ka soo qayb galay. kelmadaha ku aadan Soomaaliya iyo wixii laga yeelay isagaan u deynayaa. madaxweyne soo dhawow, waa mahadsantahay. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيدا أخيارتي إيقوه الرئيسي مسؤولينتي إيقوه الرئيسي ومدحوينها بنتلان مدن سعيد ودبيي أي شاقين با نسمها الدكداني مركا كواد وتاريخي هورتا أو داد صوماليات أو إسو تغي أو حوق قودي يعقل قودي يحوله دي إسو جي waxa ay qaban karaan ayay horta waxay u tahay daliil iyo tusaale masaalixda dekad iyo dekadnimo ee laga helaya waxa ka dheer casharka dadka Soomaalida ah la tusiyay in ay sidan suurtagal tahay suurtagalna ka tahay 3,000 kiiloomitir ee xeebta aan leenahay inay ka wada dhismaan dekada noocaana meel kastaba. dalka Soomaaliya ilaahay idankiis meelihii uu ku jiri jiray waa ka soo baxay oo socdaa waana sii socon doonaa diyaarka calaamooyinka ama tilmaamooyinka tilmaamayana tan ayaa ka mid ah in dekedan la dhiso oo lagu dhiso waliba xoog iyo xoolo iyo caqli dad private ay leeyihiin oo dawladda Puntland maada ka gaartay inta muxuu ayadu door ka qaadan karta ka qaadatay aad iyo aad ayay runtii waxay u tahay wax dhiirigelin la dawladaha kale ee xubnaha ka dawladda federaalkaana tusaale u tahay in dadka markii la abaabulo in ay wax qaban karaan waxna qabsan karaan
shanta dowlad goboleed ee maanta Soomaaliya ka shaqaysay joogtahay mid walba baday ku xiran tahay xeebay leedahay dhulbadeeday leedahay mid oo badda ka go'an ma jirto marka mid walba in ay sidaan oo kale meelaha ay badda uga agadan tahay meeshii ku habboon ee strategic ah inay dekad ka samayso intay doonto wax la ekaatee waa dhab waxa kale oo aad halkan looga dhawaajiyay Soomaaliya in ay rabto in ay ku biirto suuqa bariga Afrika waa run Soomaaliya suuqa bariga Afrikana waa ka mid Horn integration kana waa ka mid wixii kale ama badda cas ama meelo kale ka yimaado economic muxuu ahay forum ana waa ka mid insha Allah ilaahay idinkiis dadka reer Puntland geography ahaan Soomaaliya meesha uga yaalaan mararka qaarkood waxa laga yaabaa inaanay ugu sahlanayn sida qaybo kale oo Soomaaliya ugu sahlan tahay suuqa oo East Africa inay degdeg ama si sahlan uga faa'iidaan laakiin ayagana waxa u furan dabcan meel aan suuq aan ka yareen oo balaaran oo dawladda federaalka Soomaaliya ay ka shaqeyn doonto wax kasta oo fududeynayo in cilaaqaadkaas dhaqaalaha iyo ganacsiga ay oo horumaro oo uu shaqeeyo oo isku xirmaan hadii aan la yiraahdo ummadaha iyo ganacsiga dhaqaalaha geeska Afrika oo dhan hadii aan la yiraahdo iyo Horn of Africa oo dhan marka arinta infrastructure-ka dhaqaalaha waa wax aad iyo aad muhiim u ah waana waxa keeni kara deganaanshaha muddada fog ah sanadkii hore 2017 doorashooyinkii federaalka dhacayay halaysan lahay oo kamid ahay qabyaninkeeda dhameystiro qaybihii ugu horreeyay qabyada ka dhameystirmay kamid tahay dekada garacad laana fikirkeeda iyo taladeeda iyo waxeeda waa jireen si kasta ha u ahaadaan bilow laakiin maalintaas waa jireen waa taagneeday in meeshan maxaan ku raadayay dekad ay noqoto dadkii ugu horreeyay way u istaageen maalintaasba odayaasha hadda halkan ka hadlay kuwa kale badanba maalintaasba way u taagnaayeen inay garacad dekad noqoto marka 7 sano 8 sano ka bacdi alxamdulillah maanta waatana waxaan u taaganahay waa xaqiiqadeedii hambalyaan leeyahay guud ahaan dadka Soomaaliyeed gaar ahaan dadka reer Puntland hawshan dhaqan geliya waa hambalyeynaya madaxweyne Saciid ayaan si gooni ah isagana u hambalyeynaya oo fududeeyay inay soo degdegto hawshan oo ay qabsoonto oo hadda waxyaabihii la sheegayay maxaan ku raraa kaalmada u ahaa qabso dhismaha dekedan oo dhan qabtay waa ku maadsanyahay madaxweynayaasha dawlad goboleedyada kalena aan rajaynayaa inay u tahay tusaale fiican oo lagu daysado oo maxaan ku raraa la daba galo aniga ka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ahaan jamhuuriyadda Soomaaliya meel kasta oo ku taala tuulo kamida horumarka ay gaarto horumar aan ku faraxsanahay oo ku qanacsanahay oo aad iyo aad ugu qanacsanahay anaan jecelahay waay marka horumarka ka socdaay dekedan iyo deegaankan waa horumar Soomaaliyeed waana wax runtii aad iyo aad loogu farxo laguna faano waxaan rabaa inaan halkan aan ka sheego walaalkay madaxweyne Mustafa dadaalka xaggaas Ethiopia walaaleen ka soo socda maxaan ku raadaa xuduudda infrastructure-ka xuduudda Soomaaliya iyo Ethiopia in isku xirmaan oo ay sahlanaato in labada dhinac la isaga socdo ka hadlay waxaan rabaa dekedan wadada ku xiraysa Ethiopia dhaqaalii ugu horreeyay in hadda maanta saacadan inta joognay in la soo ogolaaday oo meel la soo saaray ilaahay idinkiis wadadaasi si xawli ah oo dheeri ah oo muddadii maxaan ku yiraahdaa la qiyaasay inay ku qabsoomi doonto si ka gaaban inay ku qabsoonto ah ayay u dhici doontaa waana u taagnaanaynaa har iyo habeen in ay dhaqan gasho oo wada fiican oo maxaan ku yiraahdaa miisaanka iyo muhiimadda dekedan leedahay qaadi karta inay noqoto hadii aan la yiraahdo sidaas ayaan muxuu ahaayay jamhuuriyadda Soomaaliya dhinacyadeeda dhan oo maxaan ku yiraahdaa yaa infrastructure-ka nagu xiri lahaa Ethiopia haday tahay wadooyin iyo haday tahay energy-ga muxuu ahaay xaggaas hadii anaga dekedeena ay xaggan wax uga tagayaan xaggaasna wax badan ah muxuu ahaay mustaqbalka nooga iman doono oo ay kamid tahay energy-ga oo kamid yahay oo Ethiopia hadda ay meel fiican ka sii marayso aan rajaynaa mustaqbalkana meel kale inay ka sii gaarto dadka labada dhinac degan in ay nolol fiican helaan hadafkeena ugu horeeya waay waa Ethiopian waa run laakiin waa Soomaali at the end of them ugu dambeynta waa dad Soomaaliyeed xuduud dheer ee Ethiopia aan la leenahay waxaan ugu malaynayaa dadka Ethiopia
dalka ugu xuduud dheer oo xuduudda la leh inaan nahay 1700 kilomitir qiyaastii inta xuduuddaas aan kala leenahay dhul Soomaaliyeed dhul dad Soomaaliya ay ku nool yihiin waay labada dhinacba muxuu ahay xuduudda sidoo kale Kenya xuduudda aan la leenahay ayadana ku dhawaad 1000 kilomitir 800 kilomitir gaaraysaa labada dhinac waxa ku nool dad Soomaaliyeed waa hadda adigu sidee u dhihi kartaa wiilkan Soomaaliga inuu horumaraa rabaa kan ilma abtiga ama ilma eedada ay yihiin oo dhinac kala degan inuu horumar ma rabo mandiq yani hadal macquul ma Soomaalida xuduudda labadeeda dhinac degan maamul kasta ha ka tirsanaadaan siyaasadda waa halkeeda laakiin inay horumaraan oo noloshooda ay qorxoonaato oo ay macno yeeshaan ayaan rabnaa wax kasta oo fududeynayana dawladaha deriska waa kala shaqaynaynaa annaguna waa ka shaqaynaynaa ka dawladda federaalka ahaan haddii aan la yiraahdo intaas kadib intii meeshaan ka soo qayb gashay farxaddaan nala wadaagtay walaalaheen muxuu ahay Kenya dalka Kenya iyo dalka Ethiopia nooga yimiday farxaddaan nala wadaagay aad iyo aad ayaan muxuu ahay ugu mahad celinayaa una bogaadinayaa mashmuuc aadan waxaan leeyahay maamaadii unsiga maanta waa ka fakatay muxuu ahay kismaayo marka soo dhawaada aad iyo aad ayaa u mahadsantihiin Soomaaliya dalkiini waa at the end of the day ugu dambeynta qof kasta Soomaaliya caalamku waxa la yiri shimbarka haduu duulo irsiqiis waa dhulka la yiri si kasta u duulo markuu wax inuu cuno rabo waa inuu dhulka soo degaa Soomaa qofka Soomaaliga meel kasta ha jooga Soomaaliya is a home Soomaaliya waa hoyga guriga muxuu ahay dadka Soomaalida oo dhan ay muxuu ku faani karaan anay wada leeyihiin annaguna sidaas ayaan tixgelinta u soo mar kale dadka reer Puntland hambalyo shirkadda wadaagsan muxuu ahay ka shaqeysay mashruucan si gaar ah hambalyo shirkado badan oo Soomaaliyeedna waa muxuu ahay sameyn doonaan waxaan leeyahay investmentiga shareska dekada Facebook koobaad face labaad iyo face saddexaad iyo face afraad oo si dhiman iyo ka badan investmentiga hal furo Soomaalida oo dhan iyo dibadda dalka degan oo dhan ha ka wada qayb galaan ownershipka dekada hal wada lahaada hadii la yiraahdo insha Allah aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin wassalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh